waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay. ilaahayna wuxuu leeyahay tafarraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa ilaa tafcal mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka. ilaahay baa le addoonkaygiioo cibaadadayda iyo taacaddayda iyo diinteeda wakhti u samee, aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa ghinan nafsi, baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi. wa ilaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi. 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa, baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi. albaabada faqriga laga dabooli maayo. haddaan wakhtigeenna qaybinno, saacadna aan u dayna kasbi xalaala, saacadna masaajidda aan ku camirno, oon aakhiradeenna ka fikirno, oon diinteenna ku baranno, oon diinteenna ka fikirno, oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno, oon u tagnoon gacanta soo qabanoon masaajidda keenno, saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno, nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas. tafarraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi. laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa ghina nafsi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ghinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee, waa ghina nafsi, waa naftaada oo deeqtooda weeyaan. ghinadu qalbiga oo kuu xasila. qalbiguna muxuu ku xasilayaa? aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi. kuwa ilaahay iyo rasuulka rumeeyey qulubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa. alaa ilaahay baa la intabihuu, baraarugoo dhegihiinna fura. qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi, ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane. salaadda markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa. maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa. juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa. xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato ood culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato, qalbigaaga waa kuu xasilayaa. xalaqat adacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad. man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila. qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi, samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay, socodkaagaasna uu wanaagsanaaday, jannadana mansil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. qalbigan wax kale ku xasili maayo, lacag ku xasili maayo, dhoofna ku xasili maayo. dad baa dhoofun ka fikiraya, dhoofun bay ka haysataa. dad baa tacliinu ka fikiraya, tacliintan maadiga, oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo. qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maaddada kuu badatee, wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. aqim isalaata lidikri. salaaddii baa lagu leeyahay waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa. waladikru llaahi akbar. ilaahay dikrigiisa ayaa weyn. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir. qur-aankii waa dikr, nebi maxamed waa mudakir, salaaddii waa dikr. inamaa jucila asacyu bayna asafaa walmarwa waramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam. sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi, iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan, intaba waxaa looga dalnayahay buu nebigu yidhi ilaahay xuskiisa in lagu ogo. gaayat alcibaada waa dikri weeyaan, in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan. fii salaatika, salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso, aqalkaaga ilaahay ku xasuuso, ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso, meheradaada ilaahay ku xasuuso. warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi. toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale una jirin, hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya, nin mar walba
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay. cabdillaahi bni rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay. markaasay aragto way la oyday iyadiina. markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa? markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi. markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya. anu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirose jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi. ثuma intaa kadibna nunaji aladiina اtaqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay yidhi, waan nabadgelin doonnaa. wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya, daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi. dhabtuu ku jifaa. innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur'aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa. iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen. nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaan allaahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana. markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi. halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar. waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi. taasaa ii kala caddayn. zuraarata ibna abi awfa raximahullah taabici buu ahaa, imaam almasjid buu ahaa. salaat alfajarkii buu tujinayay dadka. rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa faاftataxa suurata almudathir markuu gaadhay faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir. halkaa markuu gaadhay khara cala alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata. gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay. faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albacthi weeyaan. aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay dabeedna meydkiisiina gurigaa loo qaaday. sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar. qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi. xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu tala galay. waxay tihi nin qoraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu tala galay. anigaa carabiya ma cid kalaa? haa jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa. anigaaba qurayshiya ma cid kalaa? haa ummadda muxamed buu ka mid yahay. anigaa muxamede ma cid kalaa? haa waa cumar binu khadaab bay ku tidhi. cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo derajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakr sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa. kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay. wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa. markaasuu cumar istaago uu dhegaystay waatuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waasaqfi almarfuuc waalbaxri almaszuur ina cadaaba rabbika lawaaqic. halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay. faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi. dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin. quluubtooda ayaa noolaato jilcday. innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun. butuun maxaan cunaa, maxaan fuulaa, maxaan qaataa, halkeen galaa, maxaan dhalaa, halkeen tagaa, xaggee wax ka cunaa. waxa adiga laguma diran. adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado. calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad. nin saalixiinta ka mida lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay? maya kama warqabe ii sheega buu yidhi. waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali.
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday roodhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay razaaq waayo man huwa arazaaq allahu rabb اlcaalamiin razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali caasigu arsaaqa umana aabba yeelo laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika xadiis alquds ilaahay baa leh adigana faraa'id baan ku saaray anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi cabdii laka calaya risqak waliya calayka fariida anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahay arsaaqadaadii anaa arsaaqadaada ballan qaaday adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horrayso in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika haddii adigu faraa'iddaydii iyo waajibaadkaygii aad ka tagta buu ilaahay ku leeyahay anuu arsaaqadda kaa goosan maayo kii ilaahay caasiyaba haddii ilbaktinaysa ka waran haddii xubin jirhka ka mida fadhiisanayso shaqada joojinayso see noloshu noqon lahayd adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii 5,000 oo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markay ilaahay caasiyeen sidee noloshu noqon lahayd bal ii sheega araggii uu ina siiyey waan ku caasinay maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay rasiqii buu ina siiyey waan ku caasinay ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim anigu macsiyo ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zine ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi waxaad samaysay ma garanayo anugu ma qiil baan kuu raadiyaa buu yidhi ad ilahay ku caasada ad iga doondoonaysaa ma jiro buu yidhi qiilkaas sheekhaa doonta u teg sheekhku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyda naftaadii muu jiraa waar ma jiraa ma jiro maxaan sameeyaa aday ku taallaa buu yidhi laakiin soo noqo mid baan ku odhane macsiye ma dayn karaysid haa ma dayn karayo naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday maxaa iga qaalib noqday naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii haye maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dee caasi ilaahay laakiin mid baan ku odhan anigu 3 arrimood baan ku odhan ilaaha aad caasinayso arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey risqiisa dee u daa ha ka cunin biyaha ayaa ku siiyey allah hawada ilaahay baa ku siiyey bariiska ilaahay baa ku siiyey caanaha ilaahay baa ku siiyey cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey risqiisa u dhaaf marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo dee risqiisa u daa dee maxaan ku noolaadaa buu ka yidhi dee siday kula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido mid labaad baan kuugu dari buu yidhi dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi ma jirtaa dhulku waa dhul cirkuna waa cir gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto dadkao dhan gudaha un bay joogaan mid baan maalin nambar telefoon kala hadlo nambarka caadiga wuxuu idhi iska goo buu yidhi sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacay wuxuu idhi dibaddaan joogaa buu yidhi dibadda markaasaan ku yidhi dibad iyo guda ma jiraane kulligeen gudahaan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhanba waa hal qol keliya halkaa qolka ilaahay baa iska leh war hadda soomaaliya ka wada imanay markaan ka soo tegayna dalkan ma caalam kalaa lagaa furood soo gashay mise dhulkii unbuu ahaa cirkuna cirkunbaad hoo socotay 15 saacaan diyaarad la soconnay 15 saac non stop samaduna sidaan bay dusheeda u taallay dhulkuna sidaan buu hoosta u yaallay
هل قل وين الديود قل كأياس كله إلهي إن لقوا عابدا لقوا تلقلين إن لقوا عاصي لقوا ما تلقلين حرر كان سجاله هدات العصيان كي سمد دين كريو وقع دول كلا كو عاصي ودول كلا دون ده ما دعي كرتو ما جرتو ده هذا دول كي سيكو جوجا سيدا دوغو عاصين كرتابو كيدي تو صدحات ما كوكو دريه ميل وسن إلهي وسن كوكو أركين كله ما هلكا كو عاصي ما جرتا ما جرتا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار هبين مالين افتين مدو سريسو موجي عليم بذات الصدور يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سميع بصير ويان مخلوق ودن هدي أي ميلس ودا تاغان أي بريان وأفكوغ إلهي كبريان ومدول بباهيدي سيلاهي وشيكتو مدول بإلهي سوتكي سوا مغليا باهيدي سن إلهي ندبولو أودي كرام عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا عبادي يا عبادي الضومه يجيو با إلهين ليهي يا عبادي سبحان الله نحريس يوسف بالأرسنة قل يا عبادي الذين أسرفوا كوي مسرفين تاها إيه نفتو دا كوحد قدبي إيه أفر الله باتك الساعة معصيتي قفلت كجري هدي أقوي يا عبادي كوا صالحين تتكنين محاضو ملين مقعوق يري لها فرعون وأوجيها إنه قال يهي إنه قال لما كل منا يوجيها إنه أهل النار يهي وأوجيها أي موسى مركو أدري كلها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه فرعون ولايه موسى هذا اللي يرد بعسا كل هذا لقى يا بينه وأنتوبوا إلهينا كبقوا صون نقضي وفرعون أولى الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال لبني إسرائيل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فرعون وكبروا قوقو هذا الله لك وهل لا يي هدي مركي موسى الله دري إلهي موسى كله يهي هذا الجلع سنكون هذا تحود أود بريا كوي مسرفين تاها قل يا عبادي الذين أسرفوا سبب النزول كي يقول عقوش إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي مكة مركو النبي صوق عليه الصلاة والسلام أيو تبي وداوي وحش هذا كابح صدق اللي يقولوا كاردونت كذبتك ويرى حيبتها اللي يقول سوق عليه سقط دمع صنبا إنه كالصوت الله بجزيرة العرب وأرض الحبشة وسوق قدبه مركا سأله وحشي ها الرسول قيل هاي بأنك ويديوك ويرى سبحان الله أنيكا ما أنو حمزة دلي وأذيركي دلي أو مشركة أو زنيستي صوت الدين دين الشيء يسمى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء يسو قفك إلهي غير كي عابدا إن نفبني آذننا قويا إيه زنيسا إن عذابك الله بالله بايو إن تاب أني قوان كل دعيه بل أردون محمد يسو ويدي يبور الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كم كوجي مادين عليه الصلاة والسلام مركز النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آياته قرآن كمركي وحشي اللي كر أخريينا وحير إلا من تاب وشردك كوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله أنكم مبوحين كريم بويدي شروط بدن بلس دبر دقة ماشي ويسون نقدر هذا آيات قرآن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرقي آيات اللي قد الأخرين وحيري هذا أرى بعد مشيئة الله إلهي كود دونا ماشي كود جرتي بالله أنك إلهي الدم بقى إنه دافع ما بدوني بيري هاي النسوب عجيب وأني كين كنا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وأيوم ووحشي وقاتل حمزة نجي حمزة دلي وياه مال انت النبي قادر كيلا دلي عليه الصلاة والسلام أنصار ميت كوجا الروسانيين النبي قال لي واكن أدير كان ميت كيسي وهو أركي هالكاس على قد اللاعية حمزة على شيء سنتول لك لد اللاعية أيام مدغريها وأسكنا بنان كان لقو شيرية كريه سيا بيركي سنة عدل لقو دادي مركز النبي أرجع حي عليه الصلاة والسلام مركز الصحابة كويري ولا شيء سفيا صاصعته كأرجع حي سير هري اسكو عليه مرة كنت ضوء أبو رسول كويري قيسين توطوري لأن للما كذا الرسول كنا مركز سويري يا عمي أدركي ما مغلى يا شهيد خلاص وحوري تضبعات قريشة أنا وين كوكو أرجو أبو رسول كويري مركب القرآن كاسودك وحيقة حيسودك تعايد الشيء فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بالنبي قال له يدي هذا أرجو سنيسد وهذا أرك أو أرجو ديسد بإلهي كويري ده مدون باللقات دي لأدوكنا مدون دشوا بإلهي كويري هذا صبرتنا هي صابرين تصبر كابو خير بدن بإلهي كويري يعني حماسة إنك قادم بلالية ليتخذ منكم شهداء أنك عضمعني بإلهي قاركين إن دين تقول شهيدان أدرك وحكم النقصان من وشهيد ويان وشهيد أنك الدورين بإلهي كويري أديك وحبك من ناقص من وحبك وزيادة لقى مرة بإنك طولني ماذا يقبيالات وأيكو قادة حتى هذا أرجودي سنة دمدون باللقات دي لمدون دشوا حتى صبرتان بإلهي يري صابرين تصبر كأو خير بدن بإلهي كويري وحمزة نكيد دلي ويا نك ونبي آياتها قرآن كل بعيد وصغر أيه آيات دي قدام بيسو نبي يقول صغر وحي هيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آيات القرآن كمرك الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم تنا نقبل بيودي بركاسا مكلا سوق لي مركب النبي الله هركيني عليه الصلاة والسلام مركز النبي قرتي سكوا شهاتي مركب النبي يقول بل أدرك حمزة صاد مالين تودي شنو كشيكي مركو كشيكي يبي للمكدعة رسولك عليه الصلاة والسلام مركز سويري وهاجا وحشي إلهي با هداية كل دونه كسوه هديه مركب وجهك وكأرك أدرك من حسوسنا ياي مركب حلقات كصدا صحابة إذا أنو حبرايو هذا وحاجة دم بيجا فريسة بويري عنده سوهدي أركان وحي حسوسنا ين أدركي عنده سوين أركت مجعلين قلبي سنا النار إنه قال مجعلين هذا طبيعة الأنبياء سدا عنده سو وحشي إني أركان أيسن أربين أدركي بكو حسوسنا يا كذلك قلبك محمد مربين إنه وحشي النار وكدعو فإلهي هنو توبت كأنه سجى إن أرزاقيا هذا ندتك إلهي وعاصنا يا أنت وحنا سنة سجى نسيي
haddana waan caasiyaynaa yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay kiinnii hore kiinna dambe jiniya insigiin kiinayniigu alla ka cabsiga badan haddaad sidiisa iiga cabsataan baa ilaahay leeyahay mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan ibliis calayhi allacna haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum culamaa'u ulxadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi allacna sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday uu ilaahay u caasiyey haddaad ilaahay u ii wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay milkigayga iyo awooddayda waxba iskama dhimayaan baa ilaahay yidhi ilaahay innaka u baahan laa tanfacuhu الطaaca walaa taduruhu macsiya waa munaajaadkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd yaa man laa taduruhu الdunuub walaa tanqusuhu اlmaqfira hab lii maa laa yanqusuka واغfir lii maa laa yaduruka inaka anta alwahaab yaa man laa taduruhu الdunuub yaa man laa taduruhu الdunuub kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow maqfirada addoommaha uu u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow waa munaajaad markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducooyinkaaba ku ducaysan jiray marka طaacadduna ilaahay waxba uma siyaadiso macsiyadduna waxba kama naqusto man camila صaalixan falinafsihi man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi man اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من شكر فإنما يشكر لنفسه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم القرآن كوفيرس نفت هذا هداد هنونتنا نفت هذا هنونتي من تزكى فإنما يتزكى لنفسه نيجا نفتي سحمانتا كالطهرة ملاها حنحن النفت أفعنين كإلى مساجد يا خير كلي ماذا نفتيسا ee dembiga naftiisa kaga maydha طaacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha naftiisa u tahiray baa ilaahay yidhi man camila صaalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi kii shukriya ilaahay naftiisa ugu shukriya ilahay waxba uma qabanayo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala innakaa ilaahay u baahan nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey inaad ilaahay aad kula baayac mushtaraysa lagu siiyey araggu waa nicmad maqalku waa nicmad wakhtigu waa nicmad islaamnimadu waa nicmad bini aadantinimadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad habeenku waa nicmad maalintu waa nicmad dhallinyarnimadu waa nicmad caqligu waa nicmad caafimaadku waa nicmad lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad amnigu waa nicmad وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عيسى ابن مريم عليه السلام أيا أركنن لبدا قعمد هلكا كوغوان لبدا لغودنا هلكا كوغوان إن دلأو وحبنا عن أركين جركي سنة أي كود على برس أو وضعت أو كود عيسنا يوله إله وحن كو حمديا بلا يبدن أو أضومه سكود على إجابة باديانك وانكي وانه لبدا لغودنا هلكا كوغوان labada gacmoodna intaa ku go'an indha aan lahayn oo waxba arkaynin jirkiisana waxa ku dhacday baras wada cad yahay waxaanu ku ducaysanayaa uu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaaye badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey baan ku mahadiyaa buu leeyahay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam baa ku yidhi oo adiga balaayada kaa maqan ee dadka kale ku dhacdeed ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yidhi wuxuu yidhi waxa weeyaan dad baa jira buu yidhi qalbi bay leeyihiin qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa carabna way leeyihiin carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran walisaanan daakiran baa ilaahay i siiyey qalban shaakiran qalbi wuxuu ilaahay siiyey mar walba mahadnaqaaya iyo carab wuxuu ilaahay siiyey daakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan qofka qalbi la siiyey ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa maxabadiisa jacayladiisa aanan ku hayn iyo qofka carab la siiyey ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn
ee wax kale uu kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baaci mushtarkii baa dab ka qabsadoo ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhi baa la dhacay oo lugya gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaa ka waashay ka kalaa ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta uu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daawayn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhire marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malagga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malagga furaha naaraha hayo weeyaan malaggaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malaggaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro waxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa ayuu leeyahay qaala innakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaraysan ood ku jiraysaan buu leeyahy dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون راحة ديني تمشى ديني جنة ديني حرية ديني الدون كاتكو سوق عادتين لحدا كي سنة أدويدا أياد حقيقة مودين وحينا كو سوق قديمتين وحن عذاب هين ما أنت مليه ديني هل كابد ولي كجري سامبوليه marka maanta adduunyaan joognaa baritool aakhiraan tagaynaa arinii maada qaddamta lihada alyowm addoommaha ilaahay ka mida ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waa nahay addoonkan u nicmeeyey ma tihid haa waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid haa waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid haa waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qaddamta lihaada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku u isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyaduu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyaduu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aadin siisay baa i mashquulisay intaadin siisay iyadoo in ka badana
ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dib ii celi han soo qaato han kula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal faasadaqa wa akun min alsaalixiin walan yu'akhir allahu nafsan idaa jaa'a ajaluha wallahu khabiirun bima tacmaluun baa taalla haddana mar labaad buu ku celin ilaahay jalla wacalaa su'aasha jawaabtii buu keenayaa ilaahay markaa buu ka sii jeesanayaa yuu leeyahay khuduuhu qaada buu ilaahay odhanayaa malaa'igteedii malaa'ig zabaaniye la yidhaah oo jidhkooguba ka samaysan yahay naar jidhkiisay qabanayaan buu yidhi ibnu cabbaas meeshay qabtaanba way soo go'aysaa lafihiioo haykala ayaa hadhaya mana dhimanaya dhimasha way dhammaatay kullamaa nadijat juluuduhum baddalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuqu alcadaab jidhkii markuu ka dhacaba jidh kalaa markiiba loo soo saaraya oo soo baxaya dhimashana ma jirto markaasuu argagaxayaa meeshii la qabtaba way go'day gacantaa la qabtay way go'day mid dhegtuu qabtay way go'day mid xagganuu qabtay way go'day markaasuu alaa tarxamuun malaa'igtii buu leeyay maadii naxariisanayn waad sidee naxariis ma lihidino markaasay odhanayaan arxamu raaximiinkiiba kuuma naxariisane naxariistaad naga sugaysa annaga maxay tahay khuduuhu fagulluuh ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه محله عذابيا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما عرف حق المعرفة إلهي عظمتي سقلبي سمي قلن جنة نحرست إلهي بالله قلا ثم وحا لغو قلا إيمان نارت وحا لغا قبت بعدا إلهي نحرست لغا قبت بعدا ثم وحا لغا قبت بعدا وإيمان ما الله بحسني أنا ما جرته قال مدنا يرانا الدنيا الجوغنا وحا الله إنه كيني ولا ليال إنا فهمنا ويان مسلم dadka kale sidooda ha u fikirin adigu waad ka duwan tahay adigu innaka jannadeennu waa aakhiro weeyaan shahwaddeenna adduunyada ku gudan kari mayna innaku addunyaa sijnu lmuumin jeel baad ku jirtaa jeel ninka jeel ku jira hamigiisu waa maxay goormaad ka bixi ninka la xidhay 5 سنة الله حري أما 10 سنة الله حري والعياذ بالله كسوقات همي جيسوا محي قرمات كبح جلك قور كفكر مايو عيال جيسي كفكر مايو شقة كفكر مايو ضوف كفكر مايو هو الولكيس وقوين ومحي إله ما شمرون كاسار لما دلين قرد لك مجرين قعان لك مقوين كلية وحال لك قال حرية ما لك قبت بس qofka la xidhay maxaa laga xidhaa badii sheega xorriyadduun baa laga xidhay cuntadii waa la siin hawadii uu haystaa biyihii uu haystaa weliba waxaa la leeyahay iska naso kubaddii baa la odhanayaa ciyaar weliba diintii baad ku baran kartaa waxaasoo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goormaa jeelkan lagaa saariyo xorriyaddaadii lagu soo celin addunyaa sijnu lmuumin wa jannatu sijnu lmuumin waa muuminkee waa muuminka waxa uu doono uu eegayn waxa uu rabo uu arki karayn waxay naftu doono ma dhagaysan karo waxay naftu doonto ma cuni karo meesha naftu ay doonto ma geyn karo mar walba wuxuu leeyahay anu addoon ilaahay baan ahay ilaahay baan amarkiisa mar walba qaadanaya sidii abubakar sidiiq radia allahu canhu kharaashka ayaa qulaamkiisii kharaashka u keenayey ayaa cunto u keenay maalin markaasuu abubakar cuntadii luqmad markuu ka baday ayaa qulaamkiisii baa ku yidhi yaa khaliifata ya abaabakar awal waad i weydiin jirtad odhan jirtay cuntada halkee ka keentee maanta waad iska cuntay hamaad i weydiisay markaasuu xaggeed ka keentay zaman jaahiligii dad aan u soo faaliyey faal oo mushqaayad aan ku lahaa baa maanta mushqaayaddii isoo siiyeyoo
cuntadana markaa mushqaayadii bay ka timid buu yidhi abubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq farta saasuu farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi ma anoo xadiidkii nebigeenna maqlay calayhi salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaa luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unba xaaraana bay ku odhan soomaalidu imanka gaajada unba xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la yidhaha war waxaa diintu ma ogolan wuxuu ku odhanayaa ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay yaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u geli haddaad xor tahay musqushaa gelina qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karo kulligeen wada bullaacad socotaanahay bullaacad socoto lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adh iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa ina asturay mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasay bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa waxbaa kaa soo wariyay ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar oo ina asturay وإن أستري عيبتني بقريي يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مركو إله إلا مناجونا يا من يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل إله قروح ذي بنانك أصو ساريو والله عيبتي نقصان تيدا أنك هدادي وقال لها يدين إما دقيستين لكن سترك إلهي بأن يقولها الله يا إن يكون سترك إلهي بأن مسكيتهم كفر دان يا الرحمة إلهي شيخ يحيى بن معاذ بها محدثين تيبوها تابعينتا مركو دنتي أيام منام بالغو أركي منام دادك ور وناكسن ويسركي الموقتاي دادك إيمك الضوف بيكون ريوان الضوف سوف بدي كتل أبو تلياني قالوا كون ريوان من مركزوا أنو والله وان أركانو يوروب قالوا واسيس عضايا سلامة والرياض هذا ركتم الروم بعد وحي مسكح هذا كجرون بهابينك شيطانكو كاسو دحساري dadkii wan wanaagsana jannaday arkayeen oo qiyaamahay arkayeen oo ilaahay wajigiisa arkayeen culimada qaarkood rag baa ilaahay daatadiisa arkaya habeenkii markay seexdaan rag baa habeen walba nabi maxamed la kulmaya calayhi salaatu wasalaam yaxya ibn mucaad baa kamid ahaa markuu geeriyooday ayaa manaam lagu arko lagu yidhi yaa sheekh yaxya nin waacida oo muxaditha oo zaahida oo ummaddu jeceshahay baad ahayde maa facala allahu bika maxaad rabbigaa kala kulantay noo sheeg baa lagu yidhi markaasuu yidhi fudixtu waan ku fadeexadoobay buu yidhi banka qiyaamaha oo ilaahay baa iigu yidhi soo qabta yaxya ii keena waa lay horgeeya ilaahay markaasaa ilaahay igu yidhi shaykhaagan xun maanta camalka aad agtayda soo dhigatay eed isleedahay waad ku badbaadaysaa sheeg baa laygu yidhi buu yidhi markaasaan idhi yaa rabbi 36 xaj
ayaan carafo joogsaday oo nagtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan is idhi dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafa istaagay iyo 63,000 oo khatmata alqur'aan ah intiiba markii laygu soo celiyey la yidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadanba hee adigaan ku imid bas waxaan garanayay inaan u tagaaya rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaad kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imid bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baan jannada ku galay dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adragtu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buu yidhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buu yidhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay hanu toobadkeenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyakii laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka horaan ku baabi'innay ayaa ilaa iminka dalkeenni iyo dadkeenni ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta halkaa ina dhigtay weeyaan waa ta ummadihii inaga reebtay weeyaan طريق الوحيد طريقة كلية ما أنت أمضوا أي كبت باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محوكوها قاقي موياني أول كي أمدا محوكوها قاقي يقين يزهد بأمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محوكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل إنه قفكو dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii wakhtigiisii uu kala baqay aakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuulul amal hidideela dheeri waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaadhi doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayna waxaa kaaga horraysa waan dhiman doonaa berri toola caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad tidhahdaa dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiyo maanta طريقة الوحيدة طريقة كلية أمدو أي دين تكسر نغن كرتا أي أمدو دين تكو قبسن كرتا ومعي وطريقة الدعوة والعلم لبدا أو وضا الصعدة أو كلا الصعدة معها لبدا صو وضا الصعدة أمدو كوبت بعدين كرنا مانسا إن المسلم كا دادك مسلمين تيواوينا أي جوغنا إن دعوة كسر قبنو دعوة دوا محي ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaankii cadaaladaan uga yeedhaynaa assumcatu walriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa
aakhiradan ugu yeedhaynaa jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leenahay kaalay culummada ku xidhma culummadaad ku daba liibaanaysaane hada huwa طariiqaة الdacwa inay diintu fido dacwadda u sababa inay diintu baaqi noqotona cilmiga u sababa haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajidda u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwad hadda maaha dacwatani dan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxyihii iminka jawladdaan soo samaynayna magaxood baa maqaaxyaha magacoogii shaah macaan dhallinyaradeennii oo aan warba u haynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka beerda ka jeedinayso waa tacliim dacwaddu waa maxay waa jawlaad inna laka fi nnahaari sabxan طawiila dabbaal dheer baa ku ahaataa nebiga lagu yidhi maalintii dabbaal dheer aayaddu waa maki awaa'il الآيات التي أنزلت على المصطفى في حياة مكية في سورة المزمل ويان ما قال هذا مكبد ملئ بدأ ونبي قد احدى بالنا وابدي ومجتمع نيكا اللغينة يبرق اللغينة هي نيكا بد قد احجري الدبالنا يا اسكو صعد معها نيكا برق اللغينة يا حدو دالو عدعدو اي قبطو قيد هاد معان بو ايغانو وكونا سن عدعدو مركا كجبتنا واسكا عرابي سو صدا ماها وصير بلانكا او صعدا كبد كجري الدبالنا يا دباشا مركلي وجوجي كرا وامركو بدا كبخو هدو اسقو بدوينتا كجرا ودباش جوجي ما دعي ان لك في النهار صبحا صدح يلا باتسنا نبي لغو يري ددال وحا النبي لا سيو لا امريد laga cabiray dabaal ha seexan ha nasan ha murugo ha farxin ha qoslin saxaabadiisa kolkuu la jooga u yadhoo la cadaynayay bas yadhoo la cadaynayay waqtigii baa noo dhowaa jazaaka allah khayr waxaa laga cabiray nebiga sal allahu alay wasalam dadaalkiisii dabaashii goormuu ka baxay maalintii sakaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu yidhi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila alrafiiqi alaclaa ilaa jannati alfirdows maanta ay ugu dambaysay buu yidhi dhibaato dambe khalaas haddaan doonayno dacwadda walaalayaal dadka inaan ku dadaalno weeyaan haddaan doonayno ajyaal dadka soo socda maanta culammadu waa farkuturis dhakhtarradii culammada midkaa badan injineeradii culammadana siyaasiyiintii culammadana soomaalidu horta ilaa ka yar baa siyaasiya iska daa wax kale maadaama culammadu ay mujtamaca ku yar tahay waxaad ogaataa hoos baan u soconnaa inta culammada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaggiisa u jeedinaysa ay nagu yar tahay ee shareecadda inoo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu tiro badan yahay hoos baan u soconnaayo ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigayga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii 40 u baxno iyo haddaan 2 bilood baxdo iyo haddaad 40 baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan 2009kii magaalada la yidhahdo salaym waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imika ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray
callaama khatiiba oo ilaahay uu siiyey quwata albalaaqa waalkalaam waalfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday. maskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10 kun oo qof. markaasaa jamaacaddii maskiidkaan nagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta, masaajidkan 2 saaca subax uu buuxsami doonaa, balaas waa la kala waayi. hadda imika sii diyaar garooba, masaajidka alaabtiinna meel dhigta, balaasa sii qabsada. sidee ninka khatiibka halkan waxaa looga yimaadaa 100 kilomitir baa khudbadiisa looga yimaadaa. haynoo geeyahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid ah maa nazaluu fii manzil, hadday magaalo ama maskiid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan. gurigiisii baan ugu tegnay. markaas jamaaca kuu joogtaa la yidhoo soo gala buu naga yidhi. waan gallay. khudbad buu warqadir ku diyaarsanayay. waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa yani yakhtub biduuni alwaraqa. markaasuu nagu yidhi min ayna? markaasaan ku yidhi min jabuuti. uu yaabay, jabuuti? ha dariiqeed soo marteen? waxaan ka yidhi waxaan soo marray jabuuti, sanca, khartuum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas. maxaad masaafada intaa leeg aad u soo gasheen buu yidhi, bal ii sheega. markaasaan idhi waxaan u soo gallay liislaaxi anfusina. maxaan u soo gallay? sheekh waxaan u socnaa baan ku idhi liislaaxi anfusina, uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina, iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno. uma waliixyaa'i juhda nebi calayhi salaatu wasalaam, dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culummada ku weecisay dhaxalkii ee caamaduna adduunya u jeesatayna, inaan caamada u sheegno oon ku nidhaanno dadaalka diinta ininkana caamay waa laynaga rabaa ee culummada la shaqeeya oo garab culummada siiya. markaasuu yidhi kalaam cajiib. wax kale uma iman wax kale, intaa baan u soconnaa. wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya. markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa nafsihi. cajiib wuu kacay. sharaabkii buu noo dhigdhigay. kolkaana cabnay buu naga yidhi bas waa niiman maskiidka iska socda. annagu waxaan leenahay ninkani su'aalaha siduu noo weydiiyey daqiiqa, talow khudbaddii dhannaydba bilow ka soo diyaari uun tabliiq. cajiib. mambarkii mar aliya markuu fuulay hadalkiisa waxuu ka bilaabay, jamaaca iigu timiday buu yidhi guriga. waxay igu yidhaahdeen, waxaan ku yidhi maxaad dalka u timaadeen? waxay igu yidhaahdeen waxaan u soconnaa islaaxa naftayada. waa taan annaku maanta aan ilowsannahay buu yidhi haddaan culummo nahay. ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. aayaddaa intuu qabtay buu saacad iyo badh buu ka dhigay khudbaddii jumcada. islaaxu nafs, nafta oo la islaaxiyaa waa fardu cayn calaa kulli muslim. 10 kun oo qof oo maskiidka oo musalliina salaantooda bal ka bax waa kaas. 10 kun oo qof oo musalliintiiya salaaddii markii laga baxay aawe jamaacaddii waa kuwan salaan ummaddii oo dhan. waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhaahdo ilaahay dartii u bax. waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada. waxaad soo baranaysaa fadhiga maskiidka. ayaan dhaweyto jamaacad 40 cisho oo noo soo noqotay jabuuti anuu markaska jooga. ayaan ka yidhi war aad 40 maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi. mid baa yidhi sheekh anuu salaaddiiba haddaan bilaabay buu yidhi. maalintay jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaaddiiba ayaan bilaabay. adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho. kiina wuxuu yidhi anuu salaadda waan tukan jiree